waxaa inoo socday waxyaabaha ama la xiriira body language luqadda jirka aan la doonayn in aad samayso marka qodobadii baynu sii wadanayna waxaa ka mid ah lean into the microphone inaad meesha adoo qodbaynaya dadkii maaragtay hortaagan inaad microphone-ka saa isula qalluucisid oo maaragtay saas oo kale aad maaragtay ama saas oo kale isula waxyaabahaas oo kale waxaa la doonayaa inaad iska ilaalisid waxaa kaloo ka mid ah shuffle you notice inaad maaragtay si unnecessary aan maaragtay markaa muhiimad gaara ku jirin oo aan maaragtay aad ka baaqsan kartay inaad maaragtay noodkaadii jarraac maanta oo dhan noodkaadii iyo kala rogoodii aad gashid adoo khudbadii ama hadalkii wada taa waxay keenaysaa in maaragtay qofkii dareenkiisii ama focuskii qofka maaragtay diiradda uu saarayay barnaamijka in uu maaragtay meesha ka baxo oo maaragtay qofkii wax kale ka fikiro waxaa kaloo jirta tighten your tie inaad taygaada oo kale aad adkaysatid isla markaana sidoo kale aad dharkaada aad la ciyaarto qof waxa arkaysaa soo qulbeynay saa isu toosinayo oo garbaha saxanaya ma garanaysaa iyada arkaysa marka waxay kaa bixinaysaa image qaldan ay kaa bixinaysaa qofkii inuu adiga kugu mashquulo kaa fakaro muxuu saa u sameynaya muxuu ka meesha uu focuska saari lahaa hadalka aad jeedinaysid iyo qofku wuxuu focuska saarayaa adigii iyo tilmaamihii aad bixinaysa ayuu saaraya waxa kaloo ka mid ah haddii ilaahay ku idmayo inaad maaragtay fura ama wax lamid ah haysatid aad dhaqdhaqaajisid iyo wax lamid ah xikmadda marka waxa weeye no-wiskan aan usoo celcelinayno waxa weeye wax kale ma ahan waxa adiga u socotay oo meesha usoo istaagtay ma ahan inaad just iska hadashid oo keliya waxaa usoo istaagtay fariintaada in la maqlo waxaa usoo istaagtay qodobka inaad gudbisid ama hawl inaad gudbisid ama barnaamijyo inaad gudbisid ayaad usoo istaagtay wixii aad usoo istaagtay oo dhan ayaa meesha ka baxaya therefore sidaa darteed ayuu qofku maaragtay ugu baahan yahay in uu maaragtay ka ilaaliyo bulshadii aad wax u jeedinaysa ama audienceskaadii ama dhegaystayaashaadii inaad ka ilaalisid wax walba oo disruption ku keeni kara maaragtay wax walba oo ka khalkhalgelin kara inay fariintii ama qorshihii aad u socotay ay runtii maqlaan intaas kusoo koobaynaa qaybteena koobaad ayaad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi